السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا قيمة بدن يكو حيران جنال كامل تكنولوجي اسكسو نقض ونكسن إن شاء الله تعالى ما انتو حين نقاد دونا 10 كتونات ينكو بارنين داتا بيسكا خاصة اللغة SQL 10 كان وحو نقض دونا 10 كي وقود دمي كونستريد يدا كونستريد هورا وحي نوصو برنا إلا 4 كونستريد وحي نوصو شاقنين كونستريد ككوبيهين إلا 6 كونستريد وحي نوصو قادنين not null unique primary euphorian sidoo kale maanta waxaynu qaadan doonaa jag iyo default. haddaba waa maxay jag constraints waxay ii ogolaanayaan inaan hubiyo daatada la soo gelinayo column-ka. sidoo kale default waxay ii ogolaanayaa column-ka haddii laga tago in la sii karo default value qiimo default ah. aanu salaarno practicada markaas aynu fahmi doonaa insha Allah. waxaan abuuri doonaa table. waxaynu soo abuurnay table lagu magacaabo employee. hore ayaan usoo baranay sida table loo abuuro ma doonayn in waqti naga dhameeyo balse table-kan soo abuuranayaan waxaynu doonaynaa inaanu ku dabaqno jag constraints-ka. jag constraints wuxuu suurto gelinayaa column-kan daatada la soo gelinayo inaan la hubiyo inaa condition lagu xiro. haddii aan u baahanahay mushaarka employee-ga inuu qofka ugu yar uu qaataa $100 wax ka badan uusan qaadanin $100 wax ka hooseeyo waxay suurto gelin doono constraint loo magacaabo jag constraint aynu ku dabaqno. hadda waxaan dhihi doonaa jag waxaad hubidaa kadib waxaad sheegaysaa column-ka aad hubinaysid magaciisa. column-ka hadda hubi doono waxa lagu magacaabaa salary-gayga waa inuu ka weynaadaa $100 oo aysan jirin qof ka yar inuu qaato $100. aynu execute garayno command compile successful kadib table-kaada refresh dheh. sida ujeedid waa kana uu soo darsiiyay table-ka lagu magacaabo employee. waxaynu soo gelin doonaa xog asiga waxa dhigi doontaa right click kadib waxaynu dhihi doonaa edit top id1 Xasan. waxaynu isku dayi doonaa inaan soo gelino lacag ka yar $100 $20 oo kale to afan meesha ku qoray ayaga qaldan $40 ama $20. waxaan ugu dhagan jag constraints ma naga yiri dooyo maxaa yeelay waxaan soo dhahnay table-kan employee qofka ugu yar waa inuu qaataa $100 wax ka badan. hadda aynu siino $400 waa naga yeeli ardayga qofkan kale waxaynu sii doonaa id2 cali sigana waxaynu sii doonaa $500 waa naga yeeli doonyaa. waxaynu sii doonaa id3 faadum ayaa dhihi doonaa lacagtaynu sii doono waa $1000 waa naga aanu isi gudun marka ciwaankeena xigo wuxuu noqon doonaa default wuxuu ii suurto gelin doonaa qofka haddii uu ka tago uun buuxinin column-yada table-kayga ku qoran inaan la siiyo qiimo default ah. waxaynu ku baratigaran doonaa table cusub. table-kan cusub markaynu abuurno ayaanu isku soo laaban doonaa. waxaynu abuurnay table loogu magacaabo employee 2. table-kan waxaynu soo gelinay xog hore ayaan usoo barnay si table loo abuuro ma doonayn in waqti naga dhamaado. waxaynu ku dabaqi doonaa table-kan constraint loo magacaabo default. weli waxaynu ku dabaqi doonaa qaasatan column-ka lagu magacaabo address. haddii uu ka tago employee-gan address-kiisa hadduu ku tago waxaynu dhihi doonaa si default ah waxaad u siisaa qiimihiisa ayaan dhihi doonaa default. haddii uu ka tago qofkan address-kiisa si default waxaad u siisaa kilometer 4 kadib waynu execute garan doonaa oo naloo abuuro table-kayna. table-kaad tag kadib waxaad hadaa refresh. soo jeedinba column-ka lagu magacaabo employee 2 waa noo soo geliyay. waxaynu soo geli doonaa xog weli waxaynu soo geli doonaa by graph. hore aynu soo barnay sida xog loo soo geliyo by graph Xasan Cali kadib waxaynu sii doonaa salary-giisa $450. waynu ka tagi doonaa address-kiisa waxaynu sii doonaa id2 kadib waxaynu dhihi doonaa $350. address-kiisana waxaynu sii doonaa daynela kadib arday ilaa xoogaa soo gasho doonaa id3 markaan dhahno qofkan waxaan dhihi doonaa Faadumo
xasan. sidoo kale waxaynu sii doonaa lacag dhan ilaa $900 adresskiisa qofka waa ka tagi doonaa. hadda marka waxaynu tagi doonaa table-kayna waxaynu soo gelinay xog ayaynu waxay soo gelinay by graph. fadlan haddaan ugu cusubto cashirkan aad cashiradan ka horreeyay hadan hore usoo daawanin dib usoo daawo. waxaynu soo akhrisan doonaa table-kayni. hadda table-ka waxaa lagu magacaabaa employee 2. si table loo soo akhriyo hore ayaan usoo aragnay. select all from kadib select all from kadib table-ka magaciisa sheeg. sidaa ujeediinba qofkan waa kasoo tagnay maanu siinin qiimo, maanu siinin asoo nal ayaanu kasoo tagnay, balse qofkan kaleeto waxaynu siinay Daniel. qofkan kaleeto waxaan ma siinin. qofkan bis ayuu Daniel la rabaa inuu siiyo, labada kaleeto uu siiyo kilometer 4. qofkan kaleeto ma aanu soo gelin, sorry. waxaynu sii dhigi doonaa enter. kadib hadda ayaanu soo akhri doonaa mar kaleeto kullaa mar kaleeto kiskuud garay. 3 qof ayaa soo gashay. qofkan ugu horeeyo ma aanu soo siinin adresskiisa, lama sheegin. si default ah waxaynu ka soo akhrinay column-ka lagu magacaabo address ayaan waxaan soo siinay constraint lagu magacaabo default. asiga ayaana sii doono qiimo default ah. qofkan Daniel la siinay, balse qofkan waa ka tagay adresskiisa. qiimo default waxa loo siiyay kilometer 4. marka oo ujeedin waxay naga caawinayso constraint lagu magacaabo default. insha Allah ta'ala cashirkayna maanta inta ayuu ogyahay. fadlan haddaan ugu cusubtaan ugu soo bir oo channelka subscribe leh. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.